السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو واسكي عبد ياسين وبرنامج تحنها أها يا دريقة قوشة وقيبتني 8 ويلكي يرى أيا حاكمكي ويديي haddaba haddii aan ruux iskhilaafno maxaan sameeyaa xaakimkii ayaa ku jawaabay waxaad samaynaysaa shay aad u muhiima oo ah inaad la tacaaduftid wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay oo muxuu yahay tacaadufku xaakimkii ayaa ku jawaabay anigu waan ku arkaa oo waan ku maqlayaa oo waan ku dareemayaa intaa kadib ayaan haddana ku weydiinayaa marka aan isla tacaadufayno adiga iyo aniguba isku meel ayaan wada joognaa laakiin hadduu uusan tacaaduf jirin waxaan isku noqonaynaa kuwa lid isku ah tacaadufku wuxuu suuragelinayaa inaad ruuxa la xiriirto taasina waxay xallinaysaa mushkiladda idin dhex taalla waxaa muhiima inaad ruuxa kala dhagaysato taasina waa sababta ilaahay uu af kaliya inoo siiyey laakiin xigmadda ku jirta in ilaahay 2 dhagood ina siiyey waxay tahay inaan dhagaysanno in ka badan inta aan hadlayno hadal waxaa ugu qiimo badan kiisa gaaban ee haddana aad wax ku fahanto marka aad dhagaysato adiga oo aamusan aad baad u fahmaysaa ruuxa kale oo aad baad u qiimaynaysaa waxa uu ku hadlaayo oo adiguna jawaabta aad bixinaysaa waxay noqonaysaa mid munaasiba wiilkii yaraa ayaa yiri waan fahamay waxa aad u jeedo inaan dhagaysto in ka badan inta aan hadlaayo laakiin maxaa looga jeedaa inaan aamuso xaakimkii ayaa yiri waxaad ku maqli dhagtaada qalbigaagana waad ka aamusi haddaba halkaas waxaan ka oranaynaa waxa aad tiri waa heer sare waxa aad tiri waa shay muhiima oo weyn laakiin sidee baad arrinkaa u samaysay anigu waxaan danaynayaa inaan fahmo sida aad u samaysay sidaa ayaad ruuxa kaga dhigaysaa mid kuu soo dhowaada oo wax badan kuu sheekeeya maxaa yeelay waad dhagaysanaysaa dhagaysigu wuxuu dhaliyaa ihtimaam iyo xiise ihtimaamku wuxuu dhaliyaa jacayl qalbiga ka yimaada wiilkii yaraa ayaa yidhi waa heer sare waa markii iigu horraysay ee aan maqlo farqiga u dhexeeya maqalka iyo aamuska haddana wuxuu yidhi wiilkii yaraa maxaa ku xiga xaakimkii ayaa ku jawaabay anigu aad baan kuugu faraxsanahay iminka waxaad noqotay mid aad u jecel inuu wax ogaado oo doonaya inuu wax badan barto taasina waa dariiqa guusha waxaan horay ugu sii soconaynaa marxaladaheenna xiga wiilkii yaraa ayaa yidhi haye intaa kadib maxaa ku xiga xaakimkii ayaa ku jawaabay dhoolacadaynta wiilkii yaraa ayaa yidhi waa maxay macnaha dhoolacadayntu xaakimkii ayaa ku jawaabay dabcan ma maqashay hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi walaalkaa wejigiisa oo aad u dhoolacadaysaa waa sadaqo kadibna wuxuu yidhi miyaad og tahay in wejigaaga uu ku sugan yahay 80 muruq marka aad dhoolacadaysana waxaad adeegsanaysaa 14 muruq xubin kasta oo wejigaaga ka mid ahina waxay ku xiran tahay unug caqli unugyada caqliga ee maskaxda ku jiraana jirka ayay u raaxeeyaan marka aad dhoolacadaysana wejigu wuu raaxaysanayaa oo wuu nasanayaa oo sidoo kale maskaxdaaduna way nasanaysaa oo haddana jirkaaga ayaa nasanaya taasina waxay keenaysaa inay kororto maadada la yidhaahdo adrenalita ee ku jirta jirka bini'aadanka wiilkii yaraa ayaa yidhi oo maxaa looga jeedaa adrenalita xaakimkii ayaa ku jawaabay adrenalintu waa maado kordhinaysa jihaaska difaaca jirka dhoolacadaynta faa'iidadeeduna intaa kaliya maaha ee dhoolacadaynta waxaad baraysaa dadka kale oo ruuxu markuu arko adigoo dhoolacadaynaya isaguna wuu dhoolacadaynayaa oo faa'iidooyinkii aad heshay mid la mid ah ayuu helayaa wiilkii yaraa ayaa yidhi oo ka warran haddii uu ii dhoolacadayn waayo xaakimkii ayaa ku jawaabay adigu la tacaaduf oo dariiqa toosan ku hoggaami wiilkii yaraa ayaa yidhi oo maxaad ka waddaa hoggaamin xaakimkii ayaa ku jawaabay ku hoggaami dhoolacadaynta dhoolacadayntu waa mid la isqaadsiiyo marka aad dhowr jeer dhoolacadayso waxaad arki ruuxa kale oo bilaabaya inuu dhoolacaddeeyo marka uu ruuxaasi dhoolacaddeeyana waxaad arki in qayb kasta oo ka mida jirkiisa ay kuu ducaynayso maxaa yeelay markaad adigu dhoolacadaysay ayuu isaguna dhoolacaddeeyey taasoo keentay in qayb kasta oo jirkiisa ka mid a ay nasato waxaad ka helaysaa markaas ajar ama xasanaad qayb kasta oo jirkiisa ka mid ah dhoolacadaynta noocaan ah waxay culimmada shiinuhu ku magacaabeen dhoolacadaynta gudaha dhoolacadayntan gudaha markii ay culimmadu baaritaan ku sameeyeen waxay ogaadeen inay soo saarto maado lagu magacaabo glycogen inta aad nooshahayna waxaad xasuusataa inuusan marnaba carrabkaagu ka daalin wax akhriska ku xirnaashada ilaahay wuxuu sabab u noqonayaa inay kuu furmaan albaabo badan oo aanad filayn ilaahayna kaa arsaaqo waa laga yaabaa inta aad nooshahay inaad la kulanto dhibaatooyin badan oo xalkaaga baahan laakiinse marka ay maalmuhu iyo sannaduhu ku dhaafaan ee aad gadaal u fiiriso waxaad ogaani in wixii kugu dhacay uu ahaa wax wanaagsan oo kugu fiican haddii ayna taasi dhicin lagama yaabeen inaad heblaayo guursato haddii ayna taasi dhicin lagama yaabeen inaad shaqada hesho amase sida iminka aad u guulaysatay umada guulaysan lahayn
oo ma aadan taagnaan lahayn meesha aad maanta taagan tahay. Wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay, maanta ayaan ogaaday dariiqa guusha waxa uu yahay. Markii hore waxaan u haystay in waanooyin iyo nasteexooyin uu qof i siiyo aan guusha ku gaari karo. Xaakimkii ayaa yidhi, wiilka yarow, nasteexooyinku kutubta ayay ku yaallaan, waxaa kale oo ay taallaa hareerahaaga, laakiin xigmadda meesha ku jirta waxay tahay inaad eegto quruxda abuurka. Wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay, waan gartay dariiqa guusha. Waxaa iminka igu adag sugitaanka maridda dariiqa guusha sare. Xaakimkii ayaa dhoolla caddeeyey oo ku yidhi, waxaad ilowday shay aad u muhiima. Wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay, waan ka xumahay. Haddana wuxuu yidhi, waan ka xumahay. Xaakimkii ayaa yidhi, maxaad ka xun tahay? Wuxuu yidhi, anigu iminka dhabtii waxaan ku taaganahay dariiqa guusha. Wuxuuna eegay ninkii xaakimka ahaa, wuxuuna ku yidhi, waxaan doonayaa macluumaad dheeraada. Halkaas ayaan ku joojinaynaa maanta qaybteenna 12. Waxaan sugnaama waa qaybta xigta oo midaan ka xiiso badan.